بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. magacaygu waa Sufyaan Sheekh Axmed Sheekh Maxamed, gudoomiyaha xisbiga talo ku nool, xisbiga Islaamiga ee u ololeeya in wadankeena Soomaaliya lagu xukumo dastuurka Islaamka, kitaabka Jaamaca Sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. waxyaabaha xisbigeena dadka Soomaaliyeed ku barteen waxaa ka mid ah inaan u ololeyno inaan bedelno calanka Soomaaliya maanta ay leedahay. calankaas oo aan ku sheegnay inuu yahay calan aysan lahayn Soomaali laga soo minguuriyay ama uu keenay ama uu nagu siray gumaystihii Talyaaniga. waxaan sidoo kale sameynay calan aan ugu talagalnay in aan ku bedelno midka Soomaaliya maanta ay leedahay. waxa hubaala ama xaqiiqa ama shacabka Soomaaliyeed maanta intooda badan ka dhaadhacsan in calanka Soomaaliya ay leedahay uusan ahayn calan Soomaaliya ay leedahay. marka laga fiiriyo dhinaca taariikhda, marka laga fiiriyo dhinaca dhaqanka, marka laga fiiriyo dhinaca diinta iyo marka laga fiiriyo qofkii sameeyay intaba. waa calan aan ka turjumin dadkeena Soomaaliyeed, dhaqankeena, diinteena. waa calan uu sameeyay shakhsi aan Soomaali ahayn oo ina lagu siray. waa calan ka turjuma diimo kaleeto ama ay ku buuxaan calaamada diineed sida calaamada Wicca, Kabbalah, New Paganism and Satanism. waa calan ay ku jirto calaamada Kirishtaanka ee loo yaqaano Coptic Christian Cross marka aan ka hadlayno astaanteena qaranka. sidaa daraaddeed xisbiga talo ku nool waxa uu go'aansaday in uu sameeyo calan cusub oo uu ugu talagalay in dowladda Soomaaliya ay yeelato calankaasi. annagu waxaan ugu yeelnaa dowladda insha Allah ka dhalanaysa waddanka Soomaaliya Jamhuuriyadda Islaamka ee Soomaaliya haddii Allah subxaanahu wa ta'ala uu yiraahdo. waxaan maanta markaa aan jecelnahay inaan sharaxno sababaha calanka aan sameynay aan u sameynay iyo waxa uu ka kooban yahay sida uu uga turjumo dadkeena Soomaaliya, dhaqankeena, taariikhdeena iyo diinteena intaba. saad ogtihiinba bulsho marka ay samaysanayso calankaasi waa inuu ku salaysan yahay saddex sababood ama saddex sal inuu leeyahay. salka koowaad waxa uu yahay inuu calankaasi ka turjumo taariikhda iyo dhaqanka bulshada samaysanaysa calankaasi. micnaheedu taas wuxuu yahay calanka Soomaaliya yeelanayso waa inuu yahay calan ka turjuma taariikhda Soomaaliya. taariikhda Soomaaliya oo aan ahayn waqtigii gumaystuhu uu nala joogo waddankeena. waxaan ka wadaa taas waa in laga saaro taariikhdaasi laga soo bilaabo 1889 ilaa iyo maanta inta joogo. waayo taariikhda 1989 ka soo bilaabata boqolkaas sano micnaheedu waxa weeyaan waxaan ku jirna dagaal, waxaana nala joogo gumayste, waxaana saameeyay dhaqankooda iyo diintooda. Soomaaliya taariikhdeeda marka waxaan dib ugu laabanaynaa wixii ka horreeyay 1889. calanka Soomaaliya ay samaysanayso waa inuu ka turjumo taariikhda noocaasa, dhaqankaas. waa inuu ka turjumo waqtigii Soomaaliyeed waddanka adduunka, waddanka Afrika ugu xooga badan dhaho, waddanka Afrika ugu dhaqaalaha badan. waa inuu ka turjunto calanka aan samaysanayno taariikhda Soomaaliya markii ahayd waddanka caalamka mucaawinooyinka siiya, khaasatan wadamada muslimka ee Carabta, wadamada Islaamka ee Carabta. waa inuu calankaasi ka turjumo geesiyaalkii u soo halgamay waddankeena sida Axmed Gurey oo kaleeto iyo Sayd Maxamed Cabdulla Xasan. maanta waxaanan isku haysan dhinac kastoo laga fiiriyo labadaas shakhsi inay ahaan karaan ama ahaayeen dad u soo halgamay taariikhda diinteena iyo dalkeena Soomaaliya. waa inuu calanka aan leenahay uu ka turjumo. waa inuu ka turjumo boqortooyinkii xoogga badnaa sida boqortooyada Ujuuraan, boqortooyada Cadaal, boqortooyada Hiraab, boqortooyada Galadi, boqortooyada Gobroon, boqortooyada Majeerteen, boqortooyada Warsangeli, boqortooyada Ifaad iyo boqortooyada Cadaal. dhammaan boqortooyinkaasi waxay lahaayeen calamo ay ku maamuli jireen waddanka. calanka ugu yar ee ay lahaayeenna waxaa lagu xukumayay meeshaas uu ka talinayay in ka badan 200 sano. sidaa daraaddeed calanka maanta Soomaaliya yeelanayso waa inuu yahay calan ay ka muuqato ama reflection ku sameynaya ama ku salaysan calamadaasi waqtigaas jiray iyo taariikhda waqtigaas jiray. qaybtaasi waa qaybta taariikhda iyo dhaqanka. sidoo kaleeto calanka maanta aan samaysanayno waa inuu yahay calan ku salaysan dhaqankeena, diinteena. dhaqankeenu waa diinteena, diinteenuna waa dhaqankeena. waxaa calanka marka laga rabaa aan samaysanayno maantay inay ka muuqato diinteena Islaamka, inuu bulshada Soomaalidana u sheegayo inay yihiin dowlad muslima haysata diinta Islaamka ama dowlad islaama haysata diinta Islaamka. bulshada banaanka nagaana u sheegayo inaan dad muslimiina oo haysta diinta Islaamka nala ku xushmeeyo aan nala ku xadgudbo. calanku waa dhambaalwade. waxaa loo baahan yahay in uu muujiyo dhambaalka waxa anagu aan nahay marka la yiraahdo taariikhda iyo marka la yiraahdo caqiidada aan aaminsanahay. sidoo kaleeto calanka aan maanta samaysanayno waxaa qasaba in ay ku jirto waxyaabo ka turjumaya waxa aan nahay maanta
oo la garan karo marka aan dadka u sharxno in uu ka turjumayo maanta Soomaalida joogta. sidaa daraaddeed calanka talo ku nool ay samaysay ee aan ugu talagalnay in shacabka Soomaaliyeed uu qaato waxa uu ka turjumaa saddexdaasba. sidaan hore u sheegnaba calanka talo ku nool maanta ay samaysay wuxuu ka turjumaa ama ku jira calamada sideedda ee Soomaalida ay isticmaali jirtay ka hor 1889 sida calanka Ifaad, calanka Cadaal, calankii boqortooyadii Majeerteeniya, calanka boqortooyada Warsangeli, calanka boqortooyada Hiraab, calanka boqortooyada Ujuraan, calanka boqortooyada Galadi iyo calanka boqortooyada Gobro. calamadaas oo dhani waxay jireen 1889 ka hor. waxay ahayn calamo lagu talagalay ama lagu maamulayo waddankeena Soomaaliya. waxay ahayn calamo ay ka muuqato astaanta diinta Islaamka intii ayaga karankooda ay ka muuqato dhaqanka iyo wixii ama diintii annaga iyo taariikhdii aan lahayn waqtigaas. calanka talo ku nool marka wuxuu ka kooban yahay dhammaanba midabadaas. shanta midab ee ku taala calanka talo ku nool waxay ka yimaadaan midabadaasi calamadaasi waqtigaas jireen. waxaa kaloo dhammaan calamadaasi intooda ugu badan ay lahaayeen marka laga reebo hal ama labo aan dhaho marka laga reebo waxaa ku yaalay bisha calanka talo ku nool bishii wata halkaasi ka timid. waana astaan u taagan Islaamka inkastoo maantay aan la dhihi karinin macnaha diinta Islaamka aysan bisha in la isticmaalo meelna uga jirinin hase yeeshee waa calaamad la qaatay cid kalena aysan la isticmaalin. sidaa daraaddeed waxaan u aragnay haddana xisbiga talo ku nool inaysan wax dhibay ku jirin maadaama cid kale aysan la isticmaalin Islaamkuna inta badan isticmaalo. qaybtaas waa qaybta koowaad. qaybta labaad calanka maantay aan u samaynay waddankeena Soomaaliya waxaa ku taala tawxiidka dhexda waxaa uga taala kalimatu Allah azza wa jal. waxay muujinaysaa inaan haddad islaama waxay muujinaysaa waxdaaniya ama tawxiid. waxay muujinaysaa Allah subxaanahu wa tacaala kaliya in la caabudo. waxaa kaloo ku yaala iftiimo shan ah. dadku waxay ugu yeeraan xidigo balse xidig ma aha. waa iftiin aan ugu talagalnay waa iftiin shucaac leh oo markaad meel aad joogtaba meesha irtaba ha ahaatee aad iftiin ama nal ama xidig ama wax ifaya aad fiirisid waxa uu yeelanayaa shucaacaas. shucaacaasi wuxuu noqon karaa 6 gees 7 gees 9 gees 10 gees 12 gees 15 gees. qolo walba hayba siday u aragto waxayna ku kala duwan yihiin indhaha qofka fiirinaya iyo sida indhihiisu u caafimaad qabaan. annagu haddaan xisbiga talo ku noolnahay waxaan dooranay iftiin leh 10 gees. 10kaas gees micnaheedu wax micnaa uma taagna just waxaa micno u taagan iftiinka kaliya. iftiimadaasi shanta ahi waxaan ka soo qaadanay ama ay tusaale u yihiin micnooyin fara badan hase yeeshee waxaan ugu hormaraynaa midka ah arkaanul islaam shanta tiir ee diinta Islaamka. dhexdiisa ayay ku yaalaan saad u jeedaan. waa calan u taagan diinteena Islaamka. waa calan qofka muslimka yarkaahi uu fahmayo inuu yahay calan ay leeyihiin dad muslimiin. waa calan sidoo kale qofka banaanka ka jooga ee arkaahi uu fahmayo inay leeyihiin dad muslimiin labada dhinac. qaybtaasi waa qaybta labaad. qaybta saddexaad ee ah muxuu maanta ka turjumaa waqtigan hadda xaadirka oon joogno marka laga soo tago taariikhdii hore iyo calamadii hore ee boqortooyinka hore jiray marka laga soo tago aan dhinacayadana ka soo hadalnay diinteena Islaamka. wuxuu ka turjumaa maantay midabka cagaarka ee calankan uu leeyahay wuxuu u taagan yahay barwaaqada. saad ogtihiinba midabka cagaarka ahi waxaa isticmaala dad badan oo Soomaaliya waqtigan xaadir maanta aan joogno. wuxuu u taagan yahay barwaaqada waddankeena Soomaaliya ama ha ahaato dhul beereed ama ha ahaato bad ama ha ahaato khayraadka ama macdanta dhulka ku jira ama ha ahaato petroleumka iyo gaaska dhulkeena ku jira waa waddan hodan. wuxuu tusinayaa marka qofka Soomaaliga ahi in uusan u cararin ama u qaxin ama uusan meel kale wax ka raadin ee waddankiisa khayraadka ku jira isku dayo si ula soo bixila. midabkaasi waa midabka ugu weyn ee calanka talo ku nool ay u samaysay waddanka Soomaaliya uu leeyahay. midabka ku xiga ahi waa midabka guduudka. guduudku waxa uu taagan yahay dhiigii u daatay in la difaaco diinteena la daryeelo dadkeena loo danqado dadkeena. waa dhiigii ay daadiyeen geesiyaashii u halgamay in ay diinteena Islaamkana noo difaacaan dalkeena noo daryeelaan dadkeena u danqadaan. dhammaanba geesiyaalkaasi magacyo fara badan ay leeyihiin. maanta ma awoodno inaan halkan ku magacdhowno kulligood laakiin calaamadaas waxay u taagan wuxuu kaloo calanka ama midabka guduudka u taagan yahay inaan nahay dad diyaar u ah inay waddankooda difaacdaan oo ay dhiig u daadiyaan haddii ay timaado waqtigaas baahi jirta. midabka ku xigaahi waa midabka caddaanka. saad ogtihiin midabka caddaanka iyo midabka madowga ahi waa midabadii aan ka soo qaadanay calankii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam labadii calan rasuulka uu sameeyay.
labadaas midabi waa laba midab oo u taagan labada dhinac ee macnaha caalamka sida maanta loo isticmaalo waxay u taagan yihiin labada dhinac ee wax walbaaba waa dichotomy contrast iska soo horjeedka laba shay oo kasta waxaa ku soo jira asagana sidoo kaleeto midabka dahabiga ah midabka dahabiga ahi waxa uu la socday calamadii horeeto saddex ka mid ah calanka boqortooyadii warsangeli calanka boqortooyada hiraab iyo calanka boqortooyada ujuuraanba waxaa ku jira midabkaasi dahabiga midabka dahabiga ahi waxaa loo isticmaalaa caalamka maanta la joogo inuu yahay midabka xigmadda midabka iimaanka ama faithka sida maanta la joogo hase yeeshee maadaama dad muslimiin aan nahay annaga waxaan u isticmaalaynaa keliya taariikhdii aan kala nimid oo keliya calankaasi aan u samaynay bulshada soomaaliyeed qeexitaankiisa rasmiga ahi sidaas ay ku saabsan yihin waxaa og tihiin sidoo kaleeto inaan soo marnay marxalado kala duwan haddaana xisbiga tale ku nool oo aan ugu talagalnay dadka soomaaliyeed inaan ku tusino calanka sida loo sameeyo calan aan samaynay markii hore 6 bilood kadib waa bedelay mid kale aan samaynay 2 sano kadib waa bedelay midkaani waa kii ugu dambeeyey waxaan ugu talagalnay marka isbeddelkaas aad arkaysaan inaan shacabka soomaaliyeed ku tusino processka ama sida loo tilaabsado waxaa naga dhaadhacsan horena nooga dhaadhacsaneed inaan shacabka soomaaliya hal mar keliya wax laga dhaadhicin karin dadkeenu waa dad aan waxba baran sidaa daraaddeed in sidii cunug yar gacmaha la qabto tartiibna loo wado ilaa lagu geeyo meesha loo baahan yahay sababtaas daraaddeed qaacidada talo ku nool waxa ay tahay in markaan u ololeynayno in la bedelo dastuurka gaalaha oo lagu bedelo dastuurka islaamka inaan ugu talagalnay in aan dadka si tartiiba uga dhaadhicino annagoon isticmaalin dagaal annagoon isticmaalin waxa la yidhahdo cay bedelitaanka diinta gaalada ee dimuqraadiyadda la yidhahdo iyo dastuurkeedu ma aha wax fudud gaaladu iyo dadka la shaqeeyahay 100 sano ayay ku wadeen waddankeena inay ka dhaadhiciyaan annaguna awood uma lihin 1 sano ama 2 sano ama 5 sano inaan meesha uga bixino waxaan qaadaynaa tilaabada ah ama processka ah xisbiga talo ku nool siduu aaminsan yahay inaan si tartiib u soconno si degan dadka uga dhaadhicino aan isticmaalno doodda caqligeeda mid ka fiican ee aanaan isticmaalin xoog iyo caytin midnaba waxaan u mahad celinaynaa dhammaantiin waxaan jeclahay dhambaalkan qof kasta oo Soomaaliya oo muslima oo doonaya in waddankeena Soomaaliya lagu xukumo dastuurka islaamka inaad gaarsiisaan waxaan ugu talagalnay waddankeena inaan dib u hanano saad ogtihiinba waddankeena maantay waxaa u taliya ama lagu maamulaa dastuurkii 1961 la dejiyey waa dastuur ka soo horjeeda diinta islaamka micnaheedu taas wuxuu yahay weli madaxaaga waxaa haysta gumaystihii weli xor ma ihid si aan u xorowno marka aan abuuranno waxaan anagu leenahay waxaan rajaynaynaa dhammaantiin inaad taageertaan xisbiga talo ku nool waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu